السلام عليكم. waxaad nagala socotaa kanaalkeena YouTube ee Shukri Sunshine Linguistic Institute. waa maalin Jimco ah 18 bisha Abriil 2025 kuna beegan 20 bisha Shawaal sanada 1446 Hijri. waxaan ku guda jirnaa barashada luqadda English. ha hilmaamin inaan ku jirno 90 days challenge oo ku doonayno inaan ugu baxno qaybta beginners iyo qaybta intermediate. kusoo dhawow casharkeena maanta. casharka maanta wuxuu ku saabsan yahay oo xarfo qabaan hadda aragtida Ingiriisha inaad u akhrinayso hal oo ahaan ka soo qaadayso oosan dhehaynin ho sida like hadda kood inta aad akhrin rabto love ma dhehaysid love ma leed love of bread love good xarfaan kulli sida kaleeto waay waxay wada qabaan oo love road coat boat goal goat soap float lawn call. macnahooda inaan ku raaciyo aan isku day love of bread love yani waxa waaye qeyb camal waay qeyb laakiin badanaa waxaa loo isticmaalaa waxyaabaha maaragtay la kariyo ama la beegare oo kii kala sidii maxaan ku yiraahdaa burka laga kari breadka cake waxaas la love of bread maadaama qeyb bread ka mid ah. okay road waa wado waay. this is the road to Nairobi. tani waa wadada Nairobi geynaysa dadka. okay coat waa kooti. I have 2 coats. waxaan qabaa 2 coat ayaan leeyahay. coat boat waxa waaye doon waay. the boat sails on water. sails on water. okay b ayay ku dul socotaa. okay goal waa taqaana u malaynayaa ka waxa waaye goolka waa la xiriyaa waa dhihi kartaa. goal waxaa kaloo dhihi karaa yool way goal. halka yoolkaaga iyo halkaad hiigsanayso ha ahaata meel fog noqo mid danaynaya barashada luqadda Ingiriiska oo yoolkiisu uu yahay inuu maalin uu ku noqdo khabiir. okay goat waxa waaye ari. my father has many goats. aabay wuxuu leeyahay ari fara badan ayuu leeyahay. soap waa omo add soap to the water. omo ku dar biyaha. float waa koreebaab. wood and logs normally float on water. geedaha ama lasoo jaray ama laamanka waxay koreebayaan biyaha dushooda. loan waxaa la lacagta deynta ee bangiyaasha laga qaata ayaa la dhahaa loan. okay call waa dhuxul waay. dhuxul waay. read these sentences. akhri jumlooyinkan. waxaan idin yiraahdaa maalin weliba waxay idinka saacideynayaan adeegsiga luqadda Ingiriisiga. my father has many goats. aabay wuxuu leeyahay ari fara badan ayuu leeyahay. this is the road to Nairobi. tani waa wadada Nairobi ku geynayso. this is the road to Nairobi. tani waa wadada ku geynayso Nairobi. he ate a loaf of bread. wuxuu cunay bread ayuu cunay. bread waxa waaye bur sida mukaatiga rootiga waxaas waay allaha bread. so loaf of bread waxa waaye qeyb ka mid ayuu cunay ama half of it. okay number 4 they have tough goalkeeper. waxay haystaan goolhaye adag. waxay leeyihiin goolhaye adag. like Real Madrid has a tough goalkeeper. Real Madrid waxay leedahay goolhaye adag ayay leedahay. a paper can float on water. waraaqada waxay kor reebaysaa maxay biyaha dushooda. muuqaalkan intan ayuu ku egyahay kanaalka. haddaad ku cusubtahay subscribe noo saar. haddaad hore noola soo joogtay muuqaalka suulka saar commentigana aan ku ogaado kuma tahay. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum.